madaxweynaha dalka Venezuela Nicolas Maduro ayaa amar ku bixiyay in la xiro xadka dalkiisa uu la wadaago Brazil ilaa ay amar dambe iyadoo wali ay taagan tahay xiisadda siyaasadeed ee u dhaxaysa Venezuela iyo Mareykanka. Maduro oo la hadlay telefishinka waddankaasi ayaa sheegay in la xiri doono xadka waddankaasi uu la wadaago Brazil saacada marka ay tahay 8 habeenimo. sidoo kale madaxweyne Maduro ayaa sheegay in la xiri doono xuduudda waddankiisa uu la wadaago Colombia halkaas oo gargaarka bani'aadanimo uu ka soo galo Venezuela tan iyo intii ay sare u sii kacday xiisadda siyaasadeed ee u dhaxaysa Mareykanka iyo qaar ka mid ah xulafadiisa ayadoo wadamada Ruushka iyo Shiinaha ay taageero u muujiyeen Venezuela haddana taasi midda jin sare u kacay xiisadda sii kululaanaysa ee diblomaasiyad. Mr. Maduro ayaa sheegay in gargaarka bini'aadanimo oo ka imaanaya wadamada Mareykanka iyo kuwa xulafadooda ay tahay dandaansi sidoo kalena ay fargelin ku hayaan nabadgelyada iyo xasiloonida Venezuela. Nicolas Maduro oo dhinaca taagnaayeen madaxda militariga ayaa sheegay in Mareykanka uu isku dayay inuu afgembiyo laakiin uusan ku guuleysan. Hore ayay Venezuela u sheegtay in maraakiibta ka imaanaya Mareykanka iyo Latin America aysan ku soo xirin karin takadaha dalkaasi. dhanka kale dowladda Brazil oo ka jawaabtay hadalka Maduro ayaa sheegtay inay tahay xadgudub xuquuqul aadanaha. hogaamiyaha mucaaradka Venezuela Guaido ayaa sheegay in xuduudda Colombia uu ka soo qaadi doono caawimo iskugu jirto cunto iyo daawooyin inkastoo aysan cadeyn qaabka uu soo qaadi doono maadaama xuduudaha waddankaasi ay xiran yihiin. dowladda Venezuela ayaa beenisay in dalkooda ay ka jirto xaalad bani'aadanimo halka Mareykanka iyo wadamada Latin America ay xayiraad saareen waddankaasi taageerana ay u muujiyeen hogaamiyaha mucaaradka sidoo kalena ay ku goodiyeen inay si ku meel gaar ah u aqoonsan doonaan madaxweyne haddii Maduro uu ku adkaysto xukunka. Absaaq Shaaxsan Soomaali Cable Nairobi.